abgaal iyo eelay hadda haddayna ka bixin dhuusamareeb ballan waxaan ku qaadnaa annagoo naagaa inaan dilno oon layno ballan aan ku qaadno inaan layno oon isgacanteenna ku caanamaalno caydid 5 sano naga xirnaa aana noloshiisii geerisaanay annagoo naagaa qoryahan qaadanaynaa ragba ma qabnee ragga la qabo annaga ma wana matalaanba waa tagaana dadka eedas ka gashay dhuusamareebna annagoo gabdhaha wiilasheena qofka iyo qolobka u dhibayna habar gidir waxaan u sheegayaa nin walba oo madaxa oo habar gidira oo xil haya xilka ha ka taga xil ma hayee annaga waxay noo yihiin nimanka habar gidir oo xilka saaka haya oo xasan sheekh maxamuud la jooga naaga la qabo yagtanada ka yihiin daalaan rabnaa annaga cadaalad annaga cadaalad aan wada gacantana ku raadinayna cadaaladda ma isbaryaay meeshaanayto cid walba 4.5 ay ku joogtaa meeshaan waxaan ka cadaynayaa aydiid inuu dilay xasan sheekh maxamuud cid kale nagama dilin waxa dilay xasan sheekh maxamuud asaga saxiixay asaga bixiyay dawladii ka horeysay xukuumadda xasan cali qayre waa u haliili waysay xakunna way ku waysay inay xakunka la xukumay oo lagu xukumay toogashadana inaysan ahayn cadaalad oo ogaaday farmaajo waana saxiixi waayay waana ka gaabsaday xasan sheekh maxamuud cidda la yiraahdo habar gidir iyo eelay iyo raxan buu is ag dhigay raxan una qaatay habar gidir waxaan u sheegayaa nin walba oo madaxa oo habar gidira oo xil haya xilka ha ka taga xil ma hayee annaga waxay noo yihiin nimanka habar gidir oo xilka saaka haya oo xasan sheekh maxamuud la jooga naaga la qabo yagtanada ka yihiin xasan sheekh maxamuud caydid asagaa dilay asagoon xakunkiisii oo cadaalad ahayn oo cadaalad darro yahay ayaa habeen hore lala baxay 9 saac habeenimo lala baxay god loo soo diyaariyaa lagu riday ayadoo jawaankii oo ku xiran yahay madaxa loo galiyay oo gacmaha ka katiinadaysan yahay ayaa god lagu riday dhiigii oo ka falaq leh qof maydkiisii aragta lama arko qof geeridiisii iyo noloshiisii aragta lama arko raxan weyna la baxda waa been xasan sheekh maxamuud aa bixiyay cidaan xasan sheekh maxamuud hayno ma bixin asagaan ka rabnaa haddii cadaalad oo caydid heli waayana galgaduud habar gidirta degan oo raxan weynta iyo abgaal wacaysle ay ku dhex nool yihiin aa u dhimanaya waa loo usduugayaa laga dareema ballan weeye ballan inay raxan weyn dhuusamareeb ku ganacsan abgaal iyo dhuusamareeb inaysan ku ganacsan raxan weynba waa ballan oo habeen kasta mid mayda darbi laga soo bixiyo ogaaw xasan sheekh maxamuudow caydid diyadiisii oo laba jibaarana ku baxday caydid diyadiisii oo laba jibaaran baa ku baxday inta la raadinayay oo la goobayay odagii dhalay wasiir saraaji allah u naxariistee wuxuu qaatay duug iyo rag karfan ayadoo loo wada intii kale oo odayaal la keenay oo maalin kasta diyaarada lagu keeno oo ilmahooda la biilo oo wada hadal ka socda xasan sheekh maxamuud bixiyay xasan sheekh maxamuud oo bixinta aad caydid bixiday hadda aad xilka isaga tagtaa ku dhaanta caydid inuu ku dhintay cadaalad darro dawladii federaalka hore oo farmaajo ayaa u haliili waysay 5 sano ayuu xirnaa cadaalad darrada lagu dilay waa in laga dhiidhiyaa haddaan leenahay aqalka sare haddaan leenahay aqal hoose oo nahay gabdhihii cayr banaankaan taagana ragga la qabo annaga ma wana matalaanba caydid waxaan u baahannahay in noola saaro cadaalad waliba waxaa noo saaray xasan sheekh maxamuud annaga wax kale uma baanin caydid cadaalad u baahan yahay waayo maana arag geeridiisii iyo noloshiisa midna maana arag 5 sano naga xirnaa oo nooga jiray god oo intaas dawladii hore ee xasan sheekh maxamuud ka horeysay farmaajo ay u heliili weysay maxkamad la soo saaray oo la celiyay oo marqaati ay lahayd oo shuuta xataa intuu ka hadla oo yiri dilku kuma dhicin kas ee kama uu ku dhaca oo dib loo isku noqdo intaas waxa la sugaayay bahalkii diyadiisa inta ka badan ayaa naga qabaan eelay oo loo geeyay saamiina garan annaga ninkaas kas kuma dhiman kama uu ku dhintay laakiin annaga caydid waxa naga dilay abgaal waliba wacaysla naga dilay 4.5 meel kasta lagu degan yahay waana isla deganaa galmudug haddaan anagu baalkii abgaal iyo eelay haddayna ka bixin dhuusamareeb ballan waxaan ku qaadnaa annagoo naagaa inaan dilno oon layno ballan aan ku qaadno inaan layno oon isgacanteenna ku caanamaalno caydid 5 sano naga xirnaa
aana noloshiisa geerisaanay annagoo naagaa qoryaha qaadanayna ragba ma qabnee annagoo naagaa qaadanayna qoryaha ballan waa inaan iska celinno waa in cadaalad aan helnaa dowladda federaalka waa inaan cadaalad ka helnaa midda galmudug waa inaan cadaalad ka helnaa aqalka sare aqalka hoose maba qabnaba waa naagii xasan sheekh maxamuud meeshaan wiilkii aan shareecada islaamka lagu dilin oo odaga xasan sheekh oo kalabka oo maaragtay oo qashay ayaan ka doonaynaa habar gidir oo raadsaday oo raadinaya macnaha ko raadsaday wallaahi oo bilaahi oo tallaahi waa la yaqaanaa ninkii aad ka dishay saaxiib dadka aad ka dishay waa dadkii koofiyo dhublan magac baxay aad gobol ku samaysay sharci gaala iyo sharci muslimiin kuma aada dilin madaxweyne nooma tiib nacalad baa kugu taalle waxaan kuu sheegayaa wajiga aad ka raadsatay raxaweyn ayaadu ha ku anfacdo kursiga wixii lagugu saaray iyo sidii lagugu dhiidhay waa aad taqaanaa haye عيديد بعد انتقالة طيبة إيشاك أد قبل تلكم سويسي أصلا شريعة إسلامك وح اللي قدرين أو مالت إيشاك وح كوسقرين أن أوجين ويلكن أنا أوجين وح مسؤول أنا نبتلع أيسو كور قبل إن معناها إن أنت علو تأثير على عريش كدل يا واتقانا دتك الأدرس كجشي دلك يرحل أنت هاي عداوة كلها نادي اللي قدر عيديد wiilkeeni lagu dilay ee aanan ogeyn wax dilay had ilaa saacan xasan sheekh maxamuudna oo qadar ku saxiixay aanan garanay ilaa saacan xilli la baxay maadaama ay sidaas noqotay cadaalad ayaan doonaynaa cadaalad darro ayaa lagu dilay umana dul qaado doono cadaaladii ayaan rabnaa in la marsiiyo sida ayaan isugu soo baxnay sida loo ogaado saas daraadeed annaga ma u dul qaadanay in la dhibaateeyo mana dooni doono waxaas ayaan ka dhiidinay madaxweynahana ونقول تكرفلنا أنا قديار ومنهن أنت أنا كلنا أساسا بحنا أنت كلنا قريه كتيران وأنا أساسا بحدنا استبشرنا وأهان دونا مدهراتكم إن شاء الله إلهي هدو إدمو شقنا ولا غلط دونا ضد حس الشيخ محمود ونو إذا سينه ونعم باري سينه ضد كاس الصلاة ولا ما دقنو مدحوينا عصب حل عصب كفديا إنه سيدا أو دقمو أو ضد كقريه سيدي بحالك كلبحه أنا ما ننفلنين لكن ومن نقول عضي من نقول على ما دعوة أي تهي سيدا لو يقل قلت أيان قانا نجا وأنا كقل قلنا إن شاء الله ضدني ما نوع عاصمة وأنا مارتي سيدا كجبرتي يسان هنجرني يسان نقم جرني ضد كوايا قانان سومالي ويستقانا عدالة أنا ربنا نجا عدالة أنا عدالة ده وأنا قعنت أنا كل هذين عدالة ده ما أصبر يا ماشانيتو إذا الفار بونت فيف كوجوكته فار بونت فيف كذا قف أن كوجوجنا ملهن قف كستن هدي لا هي دولة قف كست قبيلة سرك الله قدها أنا ملهن حكامية ملهن سياسي ملهن حدلان ملهن أراي ملهن على رقمات ملهن قدامية ملهن متكلم ملهن وسير ملهن إذا أنا قانا ملا ساعة كبعدي إلا هذا ويا مسيحين وحيا مسيحين ما قرنا أنا وحيا أنا إني صحيحين أم لينا كراس حونك كفديان أيه وحوم ليان إن أوسي حس الشيخ محمود مسينين أنا هو يستحرك أنا ياسي أنا يا مثلاً عيد يا مثلاً عيد وحوم هذا نين سياسية هول قرن هاي وحوها أسكري هول قرن جذناية ما دام وجذناية كنا أذوبي نك هو هاي مارت إيش أهلك أستاذك وهاي أياق عنقليه وحكي هذا أنا ما نركين ده إذا مثلاً ليه عندي متشملها أنا إلا ساعة أنا مثلاً أنا كم حسنه ما دام أنا مثلاً حسن أنا كم أدور قاضنا هنا أنا يا شعب واسبحنا halka waxaan ka cadeynayaa in lagu dilay wiilkanaga dulmi in lagu dilay wiilkanaga xaq darro in lagu dilay wiilkanaga cadaalad darro in ku raadsanayay shaar inuu uga raadsanayay koonfur galbeed adaa uga raadsanayay xasan sheekh maxamuudow in aad anagana na tuurto ayagana qaadato anaga waa na tuurtay madaxweyne nooma aatid lagama baahna gobolada dhexe gaar ahaan Dhuusamareeb iyo Gurceel anaga rag badan oo qaali ah oo nala ka dilay oo ragii dilay xirxiran yahay aanu aamusnayn oo aamusmayna ayagana dadkoodii raadsanayna waana naqaana dadkoodii maxaa soo haray aydiid cadaalad oo raba cadaaladna uma jeedno sidii loola baxay weeye laakiin cadaalad darrada aad ku dishay aydiid anaga xasan sheekh maxamuud naga warsu